kulanti wacan dhammaantiinba kusoo dhowaada barnaamijka wadaagga oo ah barnaamij ay idiin soo gudbinayaan idaacadaha Soomaaliya. barnaamijka wadaagga waa barnaamij uu soo diyaariyo ururka Sooma oo ah urur ay ku midaysan yihiin idaacadaha Soomaaliya ka howlgala marka laga reebo kuwa ku yaala deegaanada Somaliland. barnaamijkan wuxuu idiin soo gudbinayaa warbixin bulsho iyo arrimo gaar ah oo ka jira magaaladaada iyo meel ka baxsanba. anigoo Axmed Tifo ayaa barnaamijkan soo jeedinaya. maantana waxaan ku eegi doonaa caqabadaha ay bulshada kala kulmaan saraakiisha caafimaadka ee ka shaqeeya xarumaha COVID-19 marka uu ku dhaco cudurka. dadka xoogsatada ah oo helaya xafiis ka caawiya shaqooyinka ay u baahan yihiin iyo warbixin aan idinkaga hayno dhalinyaro Muqdisho ka bilaabay baxnaaninta xoolaha la xanaaneeyo iyo kuwa kale ee la dayacay. aan ku bilownay saraakiisha caafimaadka ee ka howlgala xarumaha loogu talagalay in lagula tacaalo COVID-19 ee uu ku dhaco cudurka coronavirus ayaa bulshada kala kulma in ay ka cararaan iyaga oo baqdin ka muujinaya in wili saraakiishu ay qabaan. Najma Maxamed oo ka mid ah kalkaalisooyinka ka howlgala isbitaalka Dimartini oo lagu dabiibo dadka qaba cudurka saddexdiisa weefna uu ku dhacay iyada ayaa ka mid ah dadkaas. waxa ay sheegtay in dadku aysan aaminaynin waqti dhow xitaa haddii laga waayo cudurka qofka u shaqaynaya bukaanka. waxa ay kula talinaysaa bulshadu inay raacaan tallaabooyinka khubarada iyo wasaaradda caafimaadka ay soo jeedinayaan. Najma, waa kugu soo dhaweynayaa marka hore barnaamijka wadaagga Sooma. Axmed, waa mahadsantahay, waa ku dhawahay barnaamijka. su-aasha ugu horreysa aan ku weydiinayo waxay tahay sidee ayuu saameyn kugu yeeshay marka uu cudurka kugu dhacay? Saameynta ugu weyn oo ku yeeshay wuxuu ahaa in oo waalidkayga aan u dhawaa karin oo aan ka fogaaday dhalinyaronimada. waxay ii saamaxday in oo saameynta ugu yeelan kara ay igu yaraato. wuxuu ii qabtay sida hargab oo kale. laakiin dhibaatada ugu weyn ee dareemaya waxay ahayd in waalidkayga aan u dhawaa karin iyo qof kasta oo daniga gasho si aan uga ilaaliyo cudurka oo aan karantiin leel u garo. waa hagaag. Najma, wax ma nooga sheegi kartaa sida uu kuugu dhacay? sida uu igu dhacay waxaa waaye maadaama aniga joogay meesha oo hawsha ka socotay markastana ahaa kii risk taker ahaa, si kasta oo isku ilaaliyo markasto waxaa noqonaya positive, waxaana ku jira dadka ugu horeeya ay noqonayay. marka ma garan karay sida uu meesha ka keenay, laakiin waxay ugu badan tahay in isbitaalka ama goobta shaqada ka qaaday. waaya, marka aad ka soo bogsatay kadib ee aad dib u bilowday shaqada ah in dadka xanuunsanaya ee qaba cudurka COVID-19 aad u shaqayso, ma jireen caqabado aad kala kulantay bulshada? caqabada dhanka bulshada ah wafka koowaad ama cudurka markii koowaad ee ugu dhacay waxay ahayd March 2020 dhamaadkeeda markaa recovery sameeyay test follow up sameeyay oo negative noqdeen. maxaa la dhahay waxyaabaha ugu badan oo la kulmay waxay dadka kuwii ogaa inaa positive ahaa in markaa soo dhawaada ay kala cararayeen maadaama cudurku cusbaana ay keenaysa inay dadka ka cabsadaan in weli positive ahay. waayahay, marka dareen ahaan maxay kuu dhintay? dareen ahaan wax badan ee ii dhimay, stress badan oo geliyay. cudurka aniga wuxuu igu dhacay 3 jeer. 3 jeer baan positive noqday dabcan, laakiin waxa igu darnaa kii labaad waayo ma haysanin aniga hooyaday aabahay waa diabetic, sokor ay qabaan. sidoo kale ayadayna oo age guri aan isku karantiilo kaliya dawo mana soo dhawaa karin. walaashayna xaamile ahayd wadana reer kale lahayd. marka niyad ahaan kaasa aad ii dhaawacay oo stress iyo walwal badan iyo murug badan geliyay. anigoo shaqada joogay sidii aakhirka barka ku dareemay haysarisbaar
isla galabkiina anagoo guriga usoo socda la ilaha positive tahay meel aad kartid iyo meel u noqon kartid ma jirto. Waxaa ku qasbanaaday inaan isbitaalka ku laabto habeenkaas oo maalmihii ku xigay aan raadiyo meel aan ahayn gabaadka hooyaday, aabahay iyo ayeeyday iyo walaashay intaba si intaba uga ilaaliyo maadaama ayka maxaa lahaa cudurro kala qabeen. walaashayna xaamile ahayd, asmaadkiina ay ahayd. hagaag ilaa goorma ayaad ka shaqeynaysaa hawshan ah in dadka uu soo rito cudurka coronavirus ee isbitaalka Dimartini aad dadka ka shaqeynaya ku jirto? hawshan waxaa ka shaqeynaya ilaa markii ay bilaabatay, ilaa markii wasaaradda caafimaadka ay diiwaan gelisay keydkii ugu horeeyay coronavirus COVID-19 ayaa ka shaqeynaya. waxaana ka shaqeynaya isbitaalka hawshaas lagu dabiibaya ee Dimartini Public Hospital. waa hore uga shaqaale ka shaqeeyay isbitaalkaas. waayahay, marka gabagabadii waraysigeena soo gaarnay, Najma, ma jirtaa talooyin aada u jeedinayso bukaanada aada waqtigan la tacaalasho xaaladooda? talooyin badan maxaa la ujeedinaya. tan ugu weyn waxaa waaye qofka inuu digtoonaado, inuu iska ilaaliyo inuu bulsho marka maxaa la bulshada dhexgalaayo inuu asaabkiisa xirnaado, inuu space inuu dadka ka fogaado. maxaa la dhahay haddii ay dhacdo inuu cudur kan isaga shakiyo amaba uu dareemo qandho ama hargab ama maxaa la dhahay wuxuu hore u aqoonin inuu hore isku baaro bulshada maxaa la dhahay ka dhex baxo oo bulshada uusan kusii dhex faafin cudurka. waayo waxaa laga yaabi karaa qof age oo maxaa la dhahay u tagtay saaka ama salaantay ama cag martay ama maxaa la dhahay waqti la qaadatay cudurkaas ka qaado oo beri sababsado, ilaahay ma keenin. markasta in oo marka calaamad aad dareentid sida ugu dhaqsiya badanaha goobaha baaritaanada u tagtid, bahda caafimaadkana talooyinkooda qaadatid, dadka aad ka dhex baxdid. tan ugu muhiimsan aadan walwal isku gelinin maxaa la dhahay cudurka. waa walwalka immunity-ga daciifinaya, adiga dhan kaa dhigaya maxaa la dhahay qof maxaa la dhahay aad daciif u marka aadan walwalin. waxyaabaha talooyinka dhaqaatiirta ku siiyeen qaadato adoo ilaahay suuriya. ilaahay ummadda dhammaanteed ha ka ilaaliyo cudurkan intii la tacaalaysana u fududeeyo. waa ku mahadsan tahay, waa kaaga mahad celinaynaa waqtigaaga iyo sida aad nooga ajiibteen waraysigana kaa qaado. in ka badan 150 muruqmaal ah ayaa helay xafiis ka caawinaya in ay helaan shaqooyin ay marka hore dhibaato badan ay u mari jireen helitaankeeda, maadaama ay yihiin kuwo aan waxbaran balse doonaya inay ku shaqaystaan xoogooda. dhalinyaradan ayaa isugu jira kuwa leh xirfadaha karinta cuntooyinka, kabalyeerinimada, korontada, tulidda dharka, dhismaha iyo wixii la mida. waxaana hadda inta badan maqaayadaha iyo shirkadahuba ay kasoo dalbadaan xafiiska xoogmaal hadba tirada ay u baahan yihiin oo shaqaale ah. muruqmaalka helay shaqooyinkan xoogsiga ah ayaa xilligan ah kuwa ku shaqaysta xirfadaha la baray, iyaga oo ka dabara shaqooyinkan qoysaskooda. cali xasan oo risaalo ka tirsan ayaa soo jeedinaya warbixintan. cabdulaahi axmed ciro oo ka mid ah dhalinyaro gaaraya 160 qofood oo uu shaqo siiya xafiiska xoogmaal oo ku yaala magaalada Muqdisho ayaa ka shaqeeya dhismaha guryaha. waxa uu sheegayaa in lacagta uu shaqadan ka helo ay ku tirsan yihiin hooyadiisa iyo 4 caruur ah oo la dhalatay. waxa uu shaqada galaa 6 subaxnimo isaga oo shaqeeya ilaa 9 galabnimo. waxa uuna qaataa lacag u dhaxaysa 150 ilaa 200 oo kun oo shilin Soomaali ah. waxa uu xusay in lacagta uu ku wareejiyo hooyadiisa oo ku maareysa nolosha qoyska maadaama aabahood uu geeriyooday iyagoo yaryar. waxa uu tilmaamay in maalinkii ay soo geli jireen lacagtan ka hor shaqadan oo uu wadi jiray gaari gacan kira ah oo markii uu shaqeeyo laga rabay $1. lacagta ugu badan oo soo geli jirtana ay ahayd $2. sidoo kale marmarka qaar uu wey jiray gaari gacan oo uu shaqo la-aan noqon jiray inta badan maadaama aysan ahayn shaqo toos ah. cabdulaahi axmed oo sharaxaad ka bixinayay sida uu shaqadan ku helay ayaa xusay in wiil saaxiibkiisa ah oo ka howlgala maqaayad uu ka mid ahaa dadka uu xafiiskan xoogmaal shaqada geeyey uu u sheegay. intaa kadibna uu soo raadiyey isagoo hadda shaqeeya tan iyo bishii Abriil ee sanadkan.
runtii xafiiskan inuu jiro oo dada ii sheegay oo waxa iska ah qof xoog maalata ah waxaa lagu yiri xafiiskan marka saasaa kusoo ogaado shaqadana inay anficaysaa kusoo marka waa markii ugu horreysay aan maqaayad ka shaqeeyo runtii shaqadeedana aada ugu soo baxa waa fahamsanaa runtii waxay ka bedeshay wiilka kaliya qoyska u jooga waa aniga shaqada waxaa soo galaa subaxdii 12 saac 9 saac galabtina wax ka baxa maamulka xafiiskan ayaa sheegay in ay tilaabadan qaadan ay timid kadib markii ay arkeen dhibaatooyinka haysta dhalinyarada ee aan awoodin inay waxbarasho aadaan una baahan in xoogooda ay ku shaqaystaan. Gudoomiyaha Xoogmaal Xasan Xuseen Maxamed ayaa Sooma u sheegay in dhalinyarada ay yimaadaan xafiiska kadibna ay diiwaan geliyaan waxaan intaas kadib shaqo looga raadiyaa maqaayadaha, hoteelada, dhismayaasha, garaashyada iyo shaqooyin kale oo xoogsiga ah. Waxa uu tilmaamay xafiiskan oo laga hirgeliyay bishii Janaayo ee sanadkii 2020 ay diiwaan geliyeen in ka badan 400 oo dhalinyaro ah kuwaas oo doonaya inay qabtaan shaqooyinka muruqmaalka ah. Waxa kale oo xusay in dhamaadka sanadkan ay qorsheynayaan inay shaqooyin geeyaan dhalinyaro ka badan 100 mana jirto wax lacag ah oo laga qaado. Gudoomiyaha Xoogmaal ayaa sheegay in hadda ay jiraan shirkado ka soo dalbaday dad u shaqeeya ee u diyaariyaan dhalinyarada u diiwaan gashan sidoo kalena ay ugu tagaan goobahooda ganacsiga ee shaqooyinkaasi looga baahan yahay si ay ugu sharxaan ujeedkooda. xafiiskana horta waxaan u furnay dhalinyarada oo guriga iska joogaan shaqo la'aanta ah aan u raadano shaqooyin haday noqon lahayd xarqaan haday noqon lahayd maqaayad oo ma ata shaqada waa la tijaabinaa qofkaas haduu yahay qof shaqaysanayo oo wax qaadi karo ilaan waxaan xooga la isticmaalaa Sooma qofkan haduu sanadkiisa mise xoogiisa uu yaryahay waxba ma qaadi karo waxna ma sameyn karo Sooma. Qaar ka mid ah dhalinyarada ayaa shaqadan uga faa'iideystay in goobaha la geeyo ee shaqada ay ku bartaan xirfado maadaama marka ugu horeysa ay ku qaataan tababar gudaha xarunta ay ka howlgalayaan kadibna la shaqo geliyo. Bila Xasan Maxudiin oo 26 sano jir ah waxa uu bishii December ee sanadkii 2020 uu ka howlgalay garaash lagu sameeyo mootooyinka loo yaqaan bajaajta ee kala beer. Waxa uu 2 bilood ku jiray tababar ku saabsan barashada biraha kadibna waxa uu shaqo bilaabay bishii Febraayo. Hadda waxa uu ka mid yahay farsamayaqaanada uu leeyahay garaashka. Waxa uu tilmaamay in shaqadan ay wax badan ka bedeshay noloshiisa. Waxa uu xusay Bile in hadda uu yahay qof yaqaan waxa uu ku shaqaysto isla markaana ku dhawaad 50 mooto ka badan uu bishii cilad bixiyo lacagta soo gasho bishiina ay dhan tahay markii uu yaraato $200. Waxa kale oo tilmaamay inuu kala bartay biraha iyo ciladaha mootooyinka oo rajeynayo in mustaqbalka dhow uu furto xarun lagu cilad bixiyo gawaarida iyo mootooyinka. meeshan dhowr bilood aan ku sugnaay hal bil ayaan tababar qaatay maasha Allah hadda waxaan ka shaqeeyaa gareeshkan biraha dhan waan kala fahmay qaybta mootobajaajta ayaan ka shaqeeyaa hadda alxamdulillah nolosheeda qoyskayga iyo dhammaan ehelkaygaba waa ay ku farxeen shaqadayda markii horena waxaan ahaa qof iska camal la'aan ah. waxa kale oo aan leeyahay dhalinyarada kale inay ka faa'iideystaan wax badan baan faa'iiday qoyskayga nolosheeda dhan waan maareeyaa. weli waxaad dhageysanaysaan barnaamijka wadaagga Sooma oo Muqdisho idinkaga imaanaya. dadka ku nool 17 degmo ee gobolka Banaadir iyo deegaanada ku dhow ayaa helay xarun lagula tacaalo xoolaha ka jiran oo ay quusta ka taagan yihiin. dhalinyaro ka baxay kulliyadda xanaanada xoolaha ee jaamacadaha Muqdisho ayaa arintan suuro geliyay iyaga oo xitaa neefka u sameynaya qaliin haddii uu u baahdo. waxaa jira in sidoo kale daaweyn bilaash ay u sameynayaan xayawaanka la dayacay sida dameeraha oo kale oo wadooyinka Muqdisho daadsan marka dadka ku shaqaysta ay ku nacfiyaan. dadka ay u suura gashay in xoolahoodu ay ku daweeyaan xarunta duunyo ayaa aad uga mahad celiyay dhaqaatiirta hawshan qabatay. Maxamed Xasan oo Muqdisho jooga ayaa soo jeedinaya warbixin ka hadlaysa. dhulkeenna oo u qaybsan deegaano sare dhul daaqsimeed iyo buuraley cimil ahaana diiran waxa uu fududeeyay inay ku noolaan karaan jaad waliba oo xoolo ah sida geela, looda, idaha iyo arcadka. dalkeenna oo aanan lahayn isbitaal gaar ah oo lagu daryeelo xoolaha ayaa xaaladda si adkeysay. waxaase jirta in dhalinyaro reer Muqdisho ah oo furay xarumo loogu talagalay daaweynta xoolaha
cilmi xasan maxamuud oo muddo badan weysanaa goob lagu baxnaaniyo xoolaha aynu dhaqanno ayaa toddobaadkan keenay xaruntan neef ari ah oo dhaawac jiinkad sababay soo gaaray 20kii bishii maarso isaga oo ka keenay duleedka ceelasha biyaha kadib markii ay ku wargeliyeen dadka xoololeyda ah in la furay xarun lagu daweeyo xoolaha ugu dambeynna loo dabiibay neefkii badi xoolaha si aynu dhaqanno ma helaan daryeelkii ay inooga baahnayeen marka laga reebo nafaqeyn ay ka helaan dadka dhaqda iyo daaweyn aanan xooganayn oo badankeedana aan ku fadhin cilmi waxaana fudud inaad aragto neef ku dayacan magaalada iyo xitaa miyiga oo markii neefta bogto ku dheeraada waxtarna noqon waaya si gaara loo xanaaneeyo. neefkan hadda dhow ayuu dhalay caanahana waa daadanayeen waa dhaawacna ayaa galay kadib waxaan geeyay meesha duuyo dhaqaatiira ii imaatay way ii daaweeyeen waana la ii tolay dhaawacii qalajiyey waxbaa la ii duray waxaan ku ogaaday xarunta inay jirto wax badan inoo raadinayo dhowr maalin raadinayo oon helin oo markii dambeba iska dhaafi rabo dadka xoolaaleyda waxay dhaheen war dunya xarun dunya inta ku taalo oo qaybteeda ceelash xoolaha daaweyso markaas kabacdi inta imid marka inta imaaday waaba rid waa keenay waa la ii daaweeyey mid kale waxaan rajeynayaa insha Allah rid inay raysanayso oo boogtan ay ka bogsoone maadaama la daaweeyo cunugeedana caadi u duugi doono insha Allah. xoolo dhaqatadu waxay marar badan la dhibanayeen cid u daaweysa dunyadooda maadaama dalkeenu dadka bartay cilmiga xanaanada xoolaha ay ku yar yihiin balse tani waxay noqotay mid bogaadi mudan. maama Faadumo Saciid oo ka mid ah dadkaasi waxay halkan ka heshay filasho ka duwan midii ay maanka ku haysay maadaama 6 bilood dhamaysatay oo uu dhaawacay gaari taasi oo adkaysay xaaladda dhalmo ee neefka kadibna waxay geysay xarunta lagu daweeyo iyada oo ka keentay degmada Daynile waxaana ugu dambeyn lagu guuleystay in ay dhasho kadib qaliin lagu sameeyay kaasi oo qaatay muddo 3 saacadood ah. markii ay bila dhamaysato dhal rabtay baa ilmi meel soo maraan waayeen saasaan ku wacay dhakhtar baa ii imaaday markuu fiirshay yir meel ilma soo maraan malaha laxdaani waa qaadnay meel isbitaalkoodan geynay way qaleen hadii ay ku ruuyeen saasay ilmi ay dadku kala badbaadeen ayadana waa ii fiican tahay maasha Allah niman wanaagsan weey nimankaas laxbay ahayd laxda gaaraad maray iyadoo rimaygu ku maqan yahay marka sinii baa jabay meeshii ilmuhu soo mari lahaayeen baa la fi isku goysay oo ilaa sinii waa jabeen lax awal dhali jirto caadi awal 3 bilood u dhashay ahayd saasa qaliinka lagu sameeyay ilaahayna waa nagu guulay alxamdulillah rabbil caalamiin leesheeda hadda waa is aqdaaqay laba neef oo isla socotay weey. xaruntan oo la furay 2 sano ka hor sanadkii 2019 waxa ay daaweysaa xoolaha dabjoogta sida geela arcadka looda idaha dameerka bisada digaaga ama doorada iyadoo ay u furan tahay 4 xarun oo 3 kamid ay ka furan yihiin Muqdisho halka mid kalena ay ku taalo duleedka Muqdisho. Dr. Cabdirasaaq Manaxaashi oo ah agaasimaha xarunta duunyo ee daryeelka xoolaha ayaa Sooma u sheegay in sababta ku dhalisay aasaasidda halkan ay tahay baahida loo qabo dadka bartay cilmiga xoolaha iyo in tani fursad ay u noqon karto ardayda bartay aqoonta xoolaha ay halkan ku tababaran karaan. wuxuuna sidoo kale sheegay in halkan maalinkii celcelis ahaan 50 ilaa 80 neef lagu daweeyo wuxuuna intaasi ku daray in ay badi xaliyaan kiisaska noocan ah isla markaana ay xarunta joogaan aqoon-yahano ku takhasusay cilmigan. ujeedada loo hirgeliyay waxay tahay markaan aragnay baahida weyn ee loo qabo ama xarumaha xoolaha lagu daryeelo ama lagu daweeyo aad u yar xoolihii markaas horumarin ay helaan suuq geyntoodii caafimaadkoodii wax weyn iska bedelaan in dhalinyarada soo baratay cilmigan oo ay helaan jaamacadaha ka soo baxay tababar iyo xarun ay ku tababartaan cilmiga ka helaan ka faa'iideystaan celcelis ahaan waxay gaarayaan 50 ilaa 80 bay u dhaxayaan maalintii xoolaha la daaweeyo si joogto ah. inkasta oo ay dadkeenu faham guud ka haysan daryeelka xoolaha haddana Mahatma Gandhi ayaa yiri weynida qaran waliba iyo ummad kasta waxa lagu gartaa heerka ay ka taagan tahay daryeelka xayawaanadeeda. intaas ayaan maantana kusoo gabagabeynayaa barnaamijka wadaagga Sooma waxaanse dhagaystayaal idinkaga tagayaa su-aasha ah sidee loo joojin karaa caqabadaha ay saraakiisha caafimaadka kala kulmaan bulshada marka uu ku dhaco cudurka COVID-19 nala wadaag aragtidaada adigoo la soo xiriiraya taleefanada idaacadan mahadsanidin.